السلام عليكم ورحمة الله. كسو دوا Webi production. muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa sida ku ogaan kartaa in Facebook-gaaga lagaa jabsaday aadan ogeyn ama lagula isticmaalo aan dhahayn. fadlan haddaad ku cusub tahay channelka waxaan ka codsanayaa inaad subscribe button-ka taabatid, muuqaalkana like saartid, asxaabtaadana u sii share garaysid. haddaba sida u ogaatid in Facebook-gaaga lagula isticmaalo ama browser kale laga isticmaalo aadan ogeyn, waxaad sameynaysaa stepskan soo socda. waxaad tagaysaa Facebook setting-kaaga sidaan oo kale. kadib waxaad kasii tagaysaa meesha ay ku qoran tahay security and login. kadib waxaad kasii tagaysaa meesha ay ku qoran tahay get alert meesha ku qoran tahay. marka halkaa tagtid saddexda option baa kuu soo baxaya. qaabka marka xaggaa sare waa aragtaan waxaa ku qoran haddaad heshid alerti location-ka xataa wuu kuu sheegayaa Facebook-gaaga laga furay ama laga soo galay markii la jabsaday. wuxuu ku leeyahay waxaad samaysaa reset ku samee password-kaaga si akoonkaaga secure u noqdo. marka saddexdan baa furanaysaa. waxaad samaynaysaa ama mid ka mid ah waad furan kartaa ama saddexdaaba haddaad waad furan kartaa. midka koowaad waxaa weeye notification-kaas oo kugu soo dirayo wuxuu kugu soo dirayaa notification-ka caadiga ah oo Facebook-ga qof markuu ku soo codsado friends-ka inuu kula noqdo oo kale notification-ka caadiga ah. marka xaggaas buu kugu soo dirayaa kan koowaad, option-ka koowaad. tigta halkaas saaraysaa, kadibna save adhaysaa. ama wuxuu ku sameynayaa ama messenger-ka message igu soo dir baa dhihi kadhaa. message buu waa furanaysaa iyadana sida qaabkii haddeer oo kale baa furaysaa. ama text message as a text ama igu soo dir baa dhihi kadhaa. baa ka dhihi kadhaa. muuqaalkeeni maanta intaas buu ku saabsanaa. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddaad ku cusub tahay channelka tahay markii ugu horreysay soo booqatay, ha ilaawin inaad subscribe button-ka taabatid, ha ilaawin inaad asxaabtaada la sii wadaagtid oo share